Sidee habdhiskaaga dheefshiidka u shaqeeyaa? Habdhiskaaga dheefshiidka wuxuu ka kooban yahay dhammaan xubnahaaga ku lugta leh dheefshiidka: jajabin cuntada aad cunayso, nuugista nafaqooyinka, iyo baabi'inta waxyaabaha qashinka ah. Markaad cunto luqmad cunto habdhiskaaga dheefshiidka si otomaatig ayuu u hawlgalaa. Caloosha dhexdeeda, cuntada waxaa loo kala jejebiyaa gobolo yaryar, waxaana lagu daraa dheecaannada dheefshiidka. Cuntada dareeraha waxaa loo gudbiyaa xiidmaha yar. Marka nafaqooyinka la nuugo, xiidmaha waaweyn waa inuu ka dhuuqo biyaha iyo cusbada cuntada aan la dheefshiidin, kana takhaluso wixii wasakh oo hara ahaa, taas oo keenaysa in waxyaabaha qashinka ay sii adkaato oo ay u rogto in la kaydiyo. Saxarada xiidmaha weyn ku dhex jirta waxaa si toos loogu riixaa malawadka, hab murqooyin isku soo urursama oo loo yaqaano peristalsis. Maalin kasta 3 ilaa 4 dhaqaaq oo peristalsis ayaa uu habdhiskaaga dheefshiidka sameeyaa. Waqtiga ay ku qaadanayso cuntada in ay si toos aga gudubto habdhiska dheefshiidka waxaa lagu magacaabaa transit time. Celceliska transit time-ka dhediga waa 2.4 maalin, halka midka labkuna yahay 1.9 maalin. Marka saxaradu ay buuxiso malawadka, calaamado ayaa loo dirayaa maskaxda, iyadoo kuu sheegayso inay jirto waqti aad ku heli karto suuli. Isla mar ahaantaana, daboolka dabada ayaa dabca. Saxarada ayaa soo istaagi doonto futada. Marka aad diyaar u noqoto suulida, daloolka dabada waa uu jilcaa, kadibna saxarada ayaa dibadda loo soo saaraa.